الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalyaal meel walba aad joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan jeclahay inaan idin xasuusiyo xadiid yar oo gaaban. Allah subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku yidhi wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin. nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi balliquu canii walow aaya, iga gaarsiiya hal aayaba allaha ka dhiga. maanta waxaan jeclahay xadiid aad iyo aad muhiim inaan idin xasuusiyo. حديث صحيح مسلم كيالا حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أي ورسي قالت وحيث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قفكي تكذو لبئي تبن ركعة مالنت إيهابينك قري أي جنة لو لسا. الله أكبر. قري أي جنة لو لسا حتى دكتت لبئي تبن ركعة كلية مالنت إيهابينك. haddaad rabtid inaad adduunyada guri ku dhisatid maxaa qabanaysaa? waa inaa shaqaysid, lacag aruurisid, iskuul ka baxdid, saan samaysid. jannadii oo qof walba oo muslim meeshuu jecel yahay ay tahay oo u shaqaysa adduunyada intuu joogan, haddaad rabtid inaad guri ku dhisatid only waxaa u baahan tahay 12 ragca maalintii inaad tukatid. 12 ragca maxay kala yihiin? 2 ragca salaada subax ka horeyso, 4na salaada duhur ayay ka horeysaa, 2na ay way ka dambeysaa waa 8, 2na salaada maqrib ayay ka dambeysaa waa 10, 2na salaada cisha ayay ka dambeysaa waa 12. aan ku dadaalno walaalayaal 12kaas ragcadood allah naga dhigo ahlu janna, allah naga dhigo. xadiidkana walaalo sii gudbi saa ku heshay ajirka. man dalla calaa khayrin fahuwa kafaacil. qofkii khayr ku tuso wuxuu la mid yahay asigoo sameeyo kale. baaraka allahu fiikum. allah idin xifdiyo meel walba aad joogtaan. ahlu jannana allah naga dhigo, guryahana aan badsanna jannada. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.